السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا دي السلامي ولا راهي كقارق ميل والبوت شوكتان وولاشين هندا كسو دوادا channel كيغو وقالو فشيال ما انت هالكا محاربين عن قادرو مام الصومالي تشواب يعني مام الصومالي انا قرنتي هرتكو عين مايو كنا افلقادين مايو runtii aflagaada iyo cayna igama mudnid laakiin waxaan rabaa inaan siiro qurux badan aan wax kuugu sheego bariyahan dhan horta waxaa jiray wiil aad ka lulatay oo ma artay aad nafta u keentay oo aad dhibaateynaysay baa jirtay laakiin waxa soo dhan ka soo ta kilibkii ugu dambeeyay kaagina waan dhageystay kiisina waan dhageystay maama Soomaaliya waxaad moodaa inuu masayr ku haayo ayaad moodaa ma garanayna anagu kulli Ilaahay baa naga garanaya adiga iyo wiilkan wax idin soo dhaxmaray garan mayno laakiin markii saal lagu fiiriyo waxaad moodaa wiilka waxoogaa inaad ku kacsan tahay ma naqaano marka wax idin ka dhaxeeya wiilka waxaad sheegtay maama inuuna xanuunsanayn una cancel haynin una xanuunsanayn maama waxaad ogaataa qof aan xanuunsanayn intuu isbitaal tago inuuna dhahaynin oxygen ha laygu xiro jirkayga ha la dulduleeliyo ma aragtay inuuna qofna dhahaynin baan ogahay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan og tahay Ilaahay maama ha ku cafiyo wiilkaasi waa wiil xanuunsan Soomaali weyn oo dhan baana u jeeda inuu xanuunsan yahay Ilaahay maama ha ka cafiyo waxa kalood sheegtay in lacagtii loo ururinayo akoonkii loo furay inuuna xanuunsanayn uu rabo inuu guri ku dhisto maama inaad xanuunkiisa raadiso inaad gurigiisa raadiso inaad ma aragtay afaarihiisa raadiso war xumo tashiilnimada iyo namiimiyanimadaas maamay maxaa kugu xaqsanaya magac waxaad wadataa maama Soomaali la dhahayo haddana qaabkii maamanimada ulama dhaqmaysid dadka maama isku xishooban ku leenahay namiimiyanimadan iyo warkan aad la wareegayso jooji Canada ayaad ku nooshahay isaguna sida aan u maraynayo Mareykanka ayuu ku nool yahay laba qaaradood baad ku kala nooshiin war xumo tashiilnimada intaad dadka Mareykanka jooga aad wacdo aad raadinayso xumaatada wiilka aad raadinayso maama jooji oo waxaan ku leenahay dadka kala fadhiiso warka iyo beenta maama aad la wareegayso teeda labaad gabadhan iyo wiilkani ayaga ayaa iska kaaxiga ayaga ayaa nin iyo naagti isu soo ahaa ayaga ayaa isqabay iyaga ayay nolol soo dhaxmartay iyaga ayay awlaadi ka dhaxaysaa waxaad leedahay wuu furay naagta hadduu xataa furay labadan qof laba meel ku kala tagaya ma aha shantaa ilmood oo Ilaahay dhexdooda dhigay inta ay joogaan laba qof oo kala tagaya ma ahee wariyuuna ka tagina maama Soomaaliya wax iskula hadh oo waxaa lagu raaciyay danahaaga adiga khaaska waxaa lagu raaciyay danaha ilmahaaga waxaa lagu raaciyay danaha qoyskaaga iyo naftaada ayaa lagu raaciyay qofkan ha ku mashquulin xanuunsan haddaad u soo ducaynaysana waxaad dhahdaa Allah ha ku caafiyo haddaadan u soo ducaynaynin afkaaga iyo adinkaaga maama Soomaaliya ha laga amaan helo wiilkan xanuunsan niyada ha ka dilin oo qalbiga ha ka dhaawicin maamay wax iskula har oo isku xisho oo warkan aad la wareegaysa jooji waxaad tiri YouTube-ka haddaad iga xidho barfiir YouTube-ka haddaad iga xidho aniguna waxaan hayaabaa tiri cadeymo badan oo waa la isdabagelayaa maama Soomaaliya aqligaagu aad buu u gaaban yahay waxaad ogaataa adigana Canada joogtaa isaguna Mareykanku joogaayo berri ka maalin haday dacwad ay timaado adiga ayaaba daalac lagu raacayo waxaa lagu leeyahay aad maxaa ku soo gali Canada ba joogtay seebaad ku ogaatay ninkan inuu waxan haysto seebaad ku ogaatay ninkan inuu waxa sameeyay adaaba lagu leeyahay rufiyaanad baa tahayo basaasad baa tahayo adiga ayaa daalac lagu raacayay adduunku horumar buu gaaray meesha Soomaaliya oo ku tiri igu yiri waxaas wax soconaya ma aha waxaan ku maama Soomaaliya dib intaad isugu noqoto dadkan ku wareerinaya oo warqadaha beenta ku soo diraya oo ma artay oo Mareykanka aad leedahay waan la hadlaa waxay rabaan inay been ku sheegaan oo ku harag rulaan dabin bay rabaan inay ku dhigaan maama Soomaaliya dabinkana si looga baxa ma taqaanid isku xisho ummadda Ilaahay nabadgeli ummadda Ilaahay nabadgeliyo arsaaqada Ilaahay meel kala ha ka siiye wiilka xanuunsan ammaan si edda macaan aniga eddaday baa tahay runtii ku cayn maayo laakiin edda macaan waxaad moodaa waxoogaa inaad dheeraynayso oo aad faraskaagi aad ka dheeraynaysaad moodaayo war iyo namiimiyanimo iyo balaayo ayaad edda la wareegaysaa qof weyn baa tahay waqtigii aad ducaysan lahayd oo Ilaahay oo cafi aad dhihi lahayd baad joogtay orado intaad iska fadhiisato
waqti aad Facebook iyo YouTube aad soo gasho ma joogtide cimri baad joogtaay orodoo cibaadayso ilaahay u noqo ummadda nabadgeli baan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh